doctor Diyaa Alcawadi wuxuu saaxiib leeyahay laba arrin oo cadow bay ku yihiin lagu yiri sideedaba waa sokorta iyo cusbada. magacaygu waa Sabriye Macalin Muuse, waxaan ahay nin Soomaali ah. 60kii sanad baa iiga haray. 60kaas sano oo aan jiro 40 sano ku dhowaad qurbaan joogaa. anigoo 22 jir ah ayaan Soomaaliya ka baxay. 20 ay wax yar ii weheliyaan. waxaan soo maray 22 dal oo adduunka ah. waxaan jaamacada ka soo dhigtay Ciraaq iyo Suudaan. waxaan darajada labaad masters ka haystaa cilmiga beeraha, gaar ahaan barbaarinta khudaarta. tesiskaygii waxaan ku sameeyey yaanyada iyo cudur virus oo ku dhaca oo TYLCV la yiraahdo. waxaan ku noolaaday wadamo fara badan. waxaan soo arkay nolol fara badan oo kala duwan. waxaan mawduucaygu wuxuu ku saabsan yahay raashinka la cuno. waad garan kartaa 60kaas sano 52 sano oo ka mid ah waxaan ku noolaa magaalo. 8 sano nolosheeda ugu horeysay baadiyaan ku noolaa. nolosha baadiyaha waxaa la cuni jiray haruur ama masago, galley, caano, hilib, waxyaabahaas dabiiciga ah oo xoolaha iyo dhulka laga helo. magaalo markii la yimid waxaa la cuni jiray quraacdii canjeelo iyo saliid, qofkii heli karana beer, qadadii soor iyo caano garoor ah ama soor iyo maraq ama bariis iyo maraq iyo hilib. dadkii xoogaa lacag haysto oo xoogaa jeebkooda qoyan yahayna 70aadkii baastaa la cuni jiray iyo hilib yaro oo suugo lagu farsameeyey. maalmaha qaar sida jimcaha oo kalena hilib xoogaa waslada ah ciddii awoodda. habeenkii inta badan cambuula la cuni jiray. cambuulo waa digir iyo bariis la isku kariyey ama qamadi iyo digir la isku kariyey ama haruur ama masago iyo digir la isku kariyey. noloshu sidaasay ahayd. dadku inta badan waa caafimaad qabay. ma jirin allergy fara badan, ma jirin autismka ilmaha qurbaha jooga ay la daala dhacayaan ma jirin. dad badan baa jiray oo malnutrition qaba oo nafaqa darri qaba sababtoo ah ma heli jirin. intaas ayaana heli jirin, laakiin intii heli karta dad dhuudhuubanoo dad buurbuuranoo ma jirin. dhibkan isgoysyada iyo cholesterol iyo muxuu ahaa dhiikar iyo beerka iyo wadnaha iyo waxaasi ma jirin. markii magaalada aqoonta ay korortay oo magaalooyinka la soo galay oo dakhli la helay, cuntadii way ballaaratay. waxyaabo badan baa la cunay, khudaar badan baa la cunay, furuto badan baa la cunay. miiskii wuxuu noqday mid chicken iyo ukun, digaag iyo ukun iyo waxa soo galay iyo maxay ahayto cuntooyin fara badan oo khudrad iyo
iyo ay ka buuxaan baa soo galay. cudurkiina waa batay reer magaalnimadii waa korortay, dhaqaalihii waa kordhay, dadkii cayilsanaa oo shilista ah waa kordheen. mar walba oo wax soo kordhaan gadaal looma fiiriyo waxa la haysta armay waxaanay ka yimideen, wax cusubaa la keenaa. khudrad ku dar, kan ku dar, exercise ku dar, kaniini ku dar, qaliin ku dar, waxba un lagu sii daraa mar kasta. muddadaas dheer ee aan joogay qurbaha, waxyaabo fara badan ayaan cunay oo qaar xitaa soomaalidu ilaa hadda aanay cuninba. carab intaan joogay waxaan cunay keliyo, xiniyo, sambab, wadne, maskax, wax aanay soomaalida caadigahay cunin, wax aanan cunin lama arko. wax markii hore la ii qariyey oon dib aan kala qabsaday iyo wax aan u bareeray intaba. cuntooyinka ugu qaalisan carab laga cuno oo hadday ahaan lahayd rati fadhiya, qurbac fadhiya oo lasoo foorneeyo oo ku hor fadhiya waan cunay. kofta iyo maxaa la yidhahdaa kabsa iyo ruus bukhaari iyo mandi iyo madbi, waxaanan cunin lama arko. reer galbeedka markaan imid maraykan iyo ingiriis iyo faransiis iyo canada iyo haddii badankooda meel aanan wax ka cunin ma jiraan. cocktail grill aanan cunin ma jiro. meesha la yidhaahdo turkiga, istanbul iyo ankara iyo antaliya, hotel waxaan degay habeenkii $1,000 lagu seexdo maca cuntadiisa, oo lagu qabtay G20 wadamada adduunka ugu qaalisan, ugu dhaqaalaha badan warshadeeda ah, shirkoodii lagu qabtay. wax aanan raacin gaadiid ahaan ma jiro. maraakiibta raaxada, tareenada, diyaaradaha, baab maanta adduunyadan waxa lagu raaxaysta ah oo aan isoo marin aniga oo shacab ah iyo aniga oo xitaa mararka qaar dowladda Soomaaliya matala. 2 sano oo 2016 iyo 17 waxaan ka tirsanaa wasaaradda ganacsiga Soomaaliya. meelo badan ayaan shirar u tagay oo wasiirka u raacay. meelo badan baa nalagu casuumay. isku soo duuduub adduunya la iga sheekeyn maayo. maxaan ka dhaxlay? dhiikar, sokor, keliyihiioo fashilmay, cudur oo dhan alxamdulilah yaan ka dhaxlay. caruurtii north america iyo yurub autism iyo allergy ayay tacbaan la yihiin kulligood. war maxaa khaldan? maxaa dhacay? qof kasta intii laga buuxiyo wuxuu cunay oo balaayo ayaa laleeyahay exercise samee, orod isdhididi. arrinta oo sidaas ah oo aan la yaabanahay adduunkan, dadka masaajidda aan iskula dukanno odayaasha ah, safka koowaad kulligood kuraasi u taallo oo nin sujuudi kara oo wejiga dhulka dhigi kara aanu ku jirin. war maxaa khaldan? waxaan aakhirkii helay dhakhtar doctor diyaa alcawadi la yidhaahdo oo masaari ah. waa nin sameeyey kacaan, in saxa tacbiir, kacaan ayuu sameeyey. caalamka caafimaadka kacaan ayuu ku sameeyey ninkaas. diyaa alcawadi waa nin 50 jir ah, dhalin yar, fit ah. markaad fiiriso waxaa la yidhi ninkaad kabaha ka tolanaysid kabihiisaa la fiiriyahay. masaariduna waxay u badan yihiin dad balbalaaran. waa nin dhuuban oo maxay ahayto fit ah, oo surwaalku dhexda uga xiran yahay, shaatigu dhexda uga xiran yahay, u dhuuqsan yahay. waana nin surgeon ah, ogow, waa dhakhtar qaliinu ahaa. 6-7 sano caafimaad
cayn shamsi ka baxay, kabacdi qaliin ku shaqayn jiray, kabacdi ICU intensive care unit dadka post operation qaliinka marka dadka lagu sameeyo oo xitaa aysan waxba cuni karin oo hadli karin oo dhibkooda sheegi karin, dhakhaatiirta daryeeshu ahaa muddo dheer. wuxuu ahaa professor wax ka dhiga jaamacadda cayn shams kulliyadda caafimaadka. kadib baaritaano badan uu sameeyey iyo cilmi baaris fara badan uu sameeyey, wuxuu ogaaday waxaan cunno dhan inay khalad yihiin. bulshada marka dadka caadiga ah, dadka jiran inay aqbalaan waa sahlan tahay wixii loo soo bandhigo, laakiin dowladdii ururkii dhakhaatiirta farmashiyaashii dadkii billions and billions of dollars ka sameynayay pharmaceutical industry oo daawooyinka sameynaya oo ka ganacsanaya oo maalin walba wax cusub kaniiniyaasha iyo insuliinka iyo kan iyo kuu soo saaraya, ama waa ku dilayaan ama waa ku aamusinayaan, waa labadaas mid. doctorkaas kugu daaweyn maayo, rosheeto kuu qori maayo, lacag kaaga qaadan maayo visit, kugu daaweyn maayo, ku dhihi maayo daawadaas ka iibso farmasiye hebel. dhakhaatiirtu inta badan farmasiya ayagu ama shirka ku yihiin ama ayagu leeyihiin ama saaxiib leeyihiin ay kuu dirayaan daawada taalla. kulligood waa wada business. kaniinigii laguu qoro adduunkan lagama yaabo in maalin maalmaha ka mida lagu yiraahdo warniyahow waad ka maarantay daawo. horta daawo macnaheed waa maxay? waa wax markaad qaadato aad ku caafimaadayso. yaa yaqaana kaniini inta la qaatay lagu caafimaado? yaa yaqaana kaniini inta la qaatay la yiri mar dambe bas weeye oo kaniinigu wixii laguu siiyey waa kugu anfacaye, haddaanay ahayn nabar kugu yaala jirkaaga. kaniini matalan loo qaatay sokor ama loo qaatay dhiikar ama loo qaatay heart attack ama loo qaatay oo laga caafimaaday oo laga baxay oo la yiri markaan iska dhaaf, yaa arkay? male. dooskiisaa lasii kordhinayaa un ilaa aakhirka lagu yiraahdo kaniini waxba kuu tari maayo. marka daawo ma aha daawo. warka yaanan idinku badin. waxaan idinkala hadlayaana ma aha reasoning anigu aan idinku qancinayo waxani inay sax tahay, sababtoo anigu dhakhtar maahi, physiologist maahi. ninkaasi wuxuu ka hadlayaa physiology maxdi ah. waxan aad cunayso afkaaga gelinayso marxaladaha ay marayaan ayuu ka hadlayaa iyo sida ay jirkaaga u saameynayaan. hal ayuu uga hadlayaa. cuntooyinka qaar naloogu sheegay inay ama brotiin leeyihiin ama ay leeyihiin maxaa la yidhaahdaa macaadin ay ku jirto ama vitamins ay leeyihiin, waa run waa leeyihiin, laakiin haddaanu jirkii ka nuugi karin maxay faa'iideynayaan? dabadda marka lagu baaro, hadda kaba soo qaad matalan cagaarka la yiri vegetables-ka cagaarka ah oo ama ha noqoto cabbage-ka ama baalka jirjiirka la yiraahdo ama ansalaatada waxaan u naqaan annaga. okay, vitaminsaa ku jira, waxaa ku jira maxaa la yidhaahdaa mineralsaa ku jira. jirkii ma ka dhuuqi karaa? waa su-aashu. jirkii ma ka dhuuqi karaa? maxaa kaloo dhibaatahay leeyihiin? calooshii digestive systemkii ama aljihaaz alhadmigii ma dhibaateynayaan? korontadii jirkaaga oo dhan wixii khalqal ku ridayo jirkiina aanu nafaqadii ka dhuuqi karin, sababta loo cunayaa waa maxay? oo siday ku galeen ama uga baxaya ama calooshii dhex fadhiisanaya, makiinadii calooshana kharibaya. okay, cuntadii doctor diyaa alcawoodi wuxuu u kala saaray laba qaybood. qayb la ogol yahay in la cuno iyo qayb aan la ogolayn in la cuno bataatanba. iyo qaybta la ogol yahay in la cunona wuxuu u kala qaaday categories, level 1, level 2, level 3 ayuu cuntooyinka u kala riseeyey. iyo qaar forbidden at all ba la diidan yahayba in la cuno. aad baad u yaabaysaa markaad maqasho, waxaad leedahay war maxaa la cunayaa marka? laakiin walaalayaalow tijaabiya muddo 3 bilood ah
determination samaysta, gaar ahaan dadkiina sokorta qaba, dadkiina cholesteroolka qaba, dadkiina high blood pressureka qaba, dadka caloosha ka jiran, dadka allergiga ah oo indhaha ay hoostoodu madoobaatay, dadka sanka hilibka uga yaalo oo khuuriya ama xasaasiyadda qaba, dadka jirkoodu ay qabto allergiga ay qabto, ilmaha autismka uu ku dhaco, dhibaatooyinkaasoo dhan, gaar ahaan bal qofku hadduu 40 sano gaaro, horta dadka ugu badan oo dhibaatada ugu badan intuu yaryahay qofka jirkiisa waa qarsanayaa inta badan cudurrada, ama waaba active qofkii aada active u ahoo wixii khasab uu ku gubayaa. laakiin markii la gaaro 40 sano kadib ayay cudurradu inta badan soo baxaan. 40na ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu qofku noqdo meesha ugu awood badan yahay. soo ma ahayn falamaa balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qaala rabbi awzicnii. 40 sano waa meesha qofku ugu awood badan yahay. 40kii haddii lagu yidhaahdo waa kuu dhamaatay ka war, kubad ma ciyaari kartid, ma ordi kartid, waxba ma samayn kartid, waa yeel baad noqotay. goormee marka aan ugu awood badnaa? 20 jir. 20 jir ilaahay baaba kulay 40 uu nebiyadu kusoo diray. 40 ugu awood badan allihii uuntaa kulay. adiga marka ma waxaa leedahay maya 20 jir ugu awood badan? sababtoo ah waxaad cuntay waay. 40ka waxa ku riday waa waxaad cuntay. ayib, cuntooyinka aan ku bilowno la diidan yahay in la cuno bataatanba. kow, qalin iyo buug soo qaado. bur iyo wax kasta oo laga sameeyo. basta macaroni, basta hebeley, lisanya, alforno, hebelow, keeg, buskud, muxuu ahaa canjeero, rooti abukey, rooti dheerdheer, rooti gaagaab, rooti buubuur, muufo, hebelow, wax kasta oo laga sameeyey bur la shaqshaqay. u fiirso, bur la shaqshaqay, burka floor ay ku qoran tahay oo yaala, ama xitaa adigu intaad masago ama qamadi ama galley qaaday makiinad geysay, la qashir bixiyey, inayihii laga bixiyey, bur cad lagu soo saaray. wax kasta oo laga sameeyo waa mamnuuc waay. biitzow, lasagnow, hebelobow, wax kasta oo bur laga sameeyey waa mamnuuc. ma rabtaa caafimaadkaaga inaad soo ceshato, bur iyo wax laga sameeyey faraha ka qaad. kow. number 2, caano iyo wax laga sameeyey oo dhan faraha ka qaad. garoorow, ciirow, dhaayow, muxuu ahaa lactose freeyow, caano laga sameeyey, geed laga sameeyow, mid inta laga keenow, mid inta lagu darow, mid saa la yeelow, xataa shaaha ku caddaysan. noloshaada caano ha isku taabanin. waxaa research aniga igu dhiman yahay caanaha geela ma hubo, yaan lagu degdegin laftooda. haddaad hadda jiran tahay ood cholesterool qabto, ood dhiigkar qabto, oo aad cudurrada jointiska lafa xanuun aad qabto, oo dhabar xanuun aad qabto, ood allergy qabto, oo samboor iyo san iyo calooshaadu dibirsan tahay, oo calool weynaad aad qabto, oo daalayso jaranjarta markaad korto, caano baabkooda iska xir. iskaba xirba, kulligood iska xir. calciumaa laga helaa, intaa laga helaa, iska ilow. 2 ma tahay. 3, digir wax ka samaysan oo dhan iska ilow. beans, peas, lentil, full, all of it. masaarida kulligood calooshay ka wada jiran yihiin, waana fuulka ay cunayaan, iyo rootiga, muufada, khubs baladiga ay isku cunayaan waay. iyo jibna ariish ay yidhahdaan, jiiska cad oo tooska ah oo caanaha laga soo saaray. caanihii, jiiskii laga soo saaray, iyo fuulkii, iyo muufadii khubs baladgay ahayd
oo laga saaray iniinihii iyo qoloftii iyo wixii oo dhan musiiboo dhan isku haysata masaar dadka ugu badan oo kansarka caloosha iyo balaayada qaba ayaga waay fuul ka fogow digir soomaali ka fogow faasuuliya ka fogow beans cagaar iyo midka milaaqda iyo midka sana all of it peanut butter bahalkan ilmuhu ay subax kasta ismarsadaan ka fogow all of it dibadda ku qashin kijigaaga hadday ku jiraan kulligood ka xaq 3 ma tahay 4 digaag iyo waxay dhashay hilib digaag iyo ukun digaag qashinka ku dar iyo maajigooda suugada lagu karsado oo la yiraahdo digaag flavors ku jira qashinka ku dar kulligood dhakhaatiirta sida uu sheegay doctor Diyaal Cawadi dhakhaatiirtu markay rabeen samboorka inay daawo u raadiyaan daawooyinka waa in la tijaabiyaa yaa lagu tijaabinaya dooli samboor qaba intee lagu arkay maya maxaa la suubinaa ukunaa lagu kalxay ukunaa lagu shubay inta afkiisa la kala qaadaa ukun lagu shubay subaxii dambe samboor u qabay henes indhihii dhidid indhihii muxuu ahaa ilin sankii kan cuncun juqjuq allergy ukun hilibka digaagana gaar ahaan breastiga sun waay sun breastiga ugu caafimaad badan soo laydama dhihin fiberkiisa caloosha ma shiidi karto ilkaha calooshana waa kharaabinaya fiberka ku jira brotiinka fiberskiisa leefyadiisa dhaadheero ku jiro waa weyn calooshu maba shiidi kartaba calooshaada wuxuu ku jiraa 3-4 beri keligiis waxaa loogu talagalay in 2 hours cuntadii caloosha gasho in la digest kareeyo in asaga laga takhaluso ayaa waxay noqonaysaa buurtii qaafo digaag banaanka iska mari digaag banaanka iska mari ukunteedana kaba sii daranba banaanka iska mari waa gartay maxaa kaloon banaanka marinaa qare iyo musk melon meel ay askun kuley gurigaaga iridaysa kasoo geli ama juice ha noqdo ama qare sidiisa loo cunaa ha noqdo gurigaaga yuusan iridda kasoo gelin sun waay sun maxaa kaloon ka takhalusaa bab ama soda bebsi iyo coke iyo muxuu ahaa maxaa la yihahdaa magacyada dhan hebel bol iyo gararate iyo waxa marka la furo yiraahdo oo dhan ama kalar ha lahaadaan ama yeysan lahaan dhibaatadoodu waa maxay fiiri calooshu waa maxaa la yidhaahdaa pH-ka calooshu waa 4 iyo 3 iyo waa acid aad ay acid u tahay waxanina waa alkali markaad cunto waxay pH-ka caloosha markaa acidkeedu muxuu faa'iido leeyahay calooshii dee mas weyn ma ahanoo xoog ku jijibinayo wixii la cuno caloosha maxay ku jijibisaa waxay cunto murqaha caloosha maxay ku jijibeen acidkaas caloosha acidkeeda in la kharibo lama rabo laba waxaa khariba oo ugu badan caloosha acidkeeda baabyadan la cabayo caloosha acidkeeda kharibaan sababto ah waxay ka dhigayaan acid alkaliya ka dhigayaan 7 iyo 8 ay gaarsiinayaan acidka calooshu ay cuntada ku shiidi lahayd oo dhanaa la kharaabiyey cuntadii see loo shiidaa marka cuntadii see loo shiidaa midda labaad waxa kale oo caloosha acidkeeda kharaabiya waxaa ka mid a biyo badan cabaa lagu yiri waa loogu talagalay inaad jirato waa loogu talagalay nebi daawuud iyo taaluut markay rabeen jaaluut inay la soo dagaalamaan oo ay saxaraha ku socdeen muddada intaas la eg oo ay markii dambe webi meel biyaa soo mareen muxuu ku yiri nebi jaaluut ninka la yidhaha taaluut muxuu ku yiri boqolkii taaluut ahay oo ciidankii nebi daawuud uu ka mid ahay muxuu ku yiri qofkii biyahaas cabaa aniga iga mid maaha suurat albaqara fiiriya faman sharibahu falaysa minii
ilaa man iqtarafa gharfatan biyadihi hal gacanood qaado biyo waxa kaaga filan intii aad dhuuntaada ku qoyso wax yar ood sib aad tirahda kaaga filan you don't need biyo badan keliyahaasaan kaa noqonaa hebelaasaan kaa noqonaa kalaan faari biyaha badanu madaxa xanuunay leeyihiin stress ay leeyihiin calooshaada dhan ay kharibayaan calooshay kharibayaan biyo badan looguma talagelin in la cabo biyana cunto lagu cabo ayadana waa musiibo kale cuntada adoo cunayo inaad biyo ku dhex cabto cuntada cun wax yaroo biyo isaga deji okay maxaa kale oo aan rabaa gurigayga inaysan soo gelin sideedaba khudaar mana la yiri reer magaalnimadayba ka mid tahayoo waxyaabaha ugu fiican waayo vitaminada laga helaaho anwaac mineralska kala duwan a laga helaaho ninka reer magaalka cawska daaqa ma la yiri u fiirso marka yuhuuddii ilaahay markuu almanna wasalwa usoo dejiyey maxay dhaheen mima tunbitu lardu waxaan rabnaa min baqliha wa qithaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha qaala atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr aladnaa war wixii liitay miyaad ku bedelanaysaa wixii fiicnaay maxay ahayn waxay dalbadeen khudaaray dalbadeen basal iyo toon iyo begel iyo hebel iyo cadas firi fuulkiina waa ku jiraa cadaska fuulka isku caayla maaha fuulka iyo digirta iyo cadasku waa isku cid wixii liitay ay dalbadeen wixii liitayaa lagu yiri waa waxa ugu fiican intee ka keeneen masaaridu inay cunaan cadas iyo fuul iyo basalta cagaaran iyo isku qararamsadaan yuhuudaa bartay yuhuudaa xukumi jirtay masar soomaa yuhuudaa waxaan jecel waa kuwii nebi muuse weydiistay yuhuudaa jecel reer magaalnimaa nalooga dhigay marka cagaar hala daaqo cagaar baan daaqi jirnay awoyaasheen 100 sanay gaari jireen weligooday cagaar cuneen si miraa la cunaa miro cagaarka waxaa loogu talagalay wa abban maxay ahayd aayaddii waxadaa'iqa gulban wa faakihatan wa abban waa cagaar xoolaha loogu talagalay mataacan lakum faakihadii waay wali ancaamikum abban tii waay cagaarkii xoolaha loogu talagalaa cunaysa adiga digestive systemkaagu maba shiidi karaba nafaqo kastoo lagu sheegay ma shiidi karo waana kharaabinaya maba shiidi karaba ma fahanta ayib maxaa la ogol yahay marka in la cuno hadda wixii oo dhan waa soo xirtay baababkii o dhan waa soo xirtee maxaa la ogol yahay in la cuno adiga sidaadaba horta inaad wax cuntid uma noolide waxaad wax u cuntaa inaad ku noolaato soo ma waxaad wax u cuntaa in aad ku noolaato okay maxaan cunaayo waaya qado quraac iyo qado iyo casho soo ma rabtid adiga ama dadku ama 2 jeer ay wax cunaan ama 3 jeer horta waxaa qaacido ka dhigataa markaad gaajooto wax cun waqtigii qadadaa yimid waqtigii cashadaa yimid waqtigii quraacdaa yimid kalaam faariq waay markaad gaajooto wax cun markaad oonto wax cab 2 liitara la cabaa iyo 3 liitara la cabaa kalaam faariq waay okay subaxii waa kacday koob qaxwaa midda kale waxbaan kuu sheegaa doctor diyaa alcawadi wuxuu saaxiib leeyahay 2 arrin oo cadow bay ku yihiin lagu yiri sideedaba waa sokorta iyo cusbada waa sokorta iyo cusbada sokor maxay faa'iido leedahay maskaxdaada shaqaynaysa hadda aad u jeedid sokoray ku shaqaysaa jirkaaga oo dhan sokoruu ku shaqeeyaa wax kasta ood cuntid si jirkaagu uga faa'iidaysto aakhirka sokoraa loo bedelaa jirkaaga haddii sokortu ka baxdo waa dhimanaysaa hadday 600 gaarto laakiin ma u dhimanaysa arrinaa aada muhiim u ah doctor cawadi uu sharxay oo hadda sharaxiisii aanan sharxi karin oo waxaa jirta ninaa wuxuu ku leeyahay sokortaydu markay 200 dhaafto madaxa xanuuna macnaha madaxu muxuu ku xanuunaa sababtoo sokortaada 200 gaartay waay wax sokor lahaan cunay ama waa xanaaqay ama waa haye
aniga qol haddaan galo oo markaan galo nalku damo nalka aniga maa damiyey waa maya cilad kalaa damisay sooma laakiin waxaa coincidence noqday oo isku soo aaday qolkii inaan galay iyo in korontadii tagtay sooma laakiin aniga korontada ma tegin sokorta cirka gashay madaxaaga ayadu sabab maaha inuu xanuuno isku ciladaa idin haysata sokortii iyo adiga waxa sokorta kor u qaaday ayaa adigana madaxa ku xanuuniyey waa cilad jirkaaga ku jirta waxa sokortaada 600 300 iyo 200 iyo 400 ayaa adigana madaxa ku xanuuniyey oo jirkaaga ka jaraysiiyey oo indhaha zam ku siiyey oo dhabarka ku xanuuniyey oo wadnaha ku maaragtay ku gariiriyey waa waxii sokortan meeshaas geeyey waa cilad kale waay waxaad cuntayna ka timid taas waa in la fahmaa sokortu qofka dhibaato uma keento bilcaks furfurnaan iyo nashaad iyo energy siisaa qofkaan sokor lahayn jirkiisa waa dansan yahay waa dama waa korontadii jirka sokortu okay sokor iyo cusbo doctor Cawadi wuxuu yiri wuxuu saaxiib ayuu leeyahay marka uu kula hadlayo shukulaato madow ayaa miiska u saaran waxaa miiska u saaran caag juwaafa ah oo supermarketyada lagu gado oo sokor ka buuxdo oo la yiri waa sun ayaan la isku cabin ayaa miiska u saaran oo cabaa sokor dhib kuma qabo shaaha sokor ku darso muxuu ahaa wixii cambuulada sokor ku darso wixii aad cunaysid sokor ku darso he has no any problem with sugar iyo salt okay maxaa lagu quraacnaa marka subaxii markaad koobka kafeega cabto haddaa rabto horta timir ku cun 5 xabo 7 xabo timira ku cun waa soo wadnaa waxyaabaha masmuuxa haddaa rabtana rootiga feeri u fiirso rootiga whole wheat la yiraahdo whole wheat ama whole grain qoloftiisii iyo iniinyihiisii lagu shiiday ee sliceska ah ee suuqyada waaweyn sida Walmart oo kale iyo supermarketyada dhan lagu gado ee long life-ka ah ee ugu yaraan 2 weeks 3 weeks noolaanayo sliceska ah soo gado whole grain inuu yahay waay whole grain inuu yahay waay mirihii oo qoloftoodii iyo iniinyahoodii lagu shiiday ama waa la kala shiiday waa la isku daray haddaysan isku shiidmayn adiga laftaadu makiinad markaa geysatid haruur ama masago ama qamadi ama galley waxaad tiraahdaa amaba xashiriba intaad xashiriso kana gooniha lagu shiido kana gooniha lagu shiido isku darso sidoodii hore ku celi haddaysan isku shiidmayn oo makiinadu isku si u shiidi karin sidoodii hore ku celi adiga bal waxaad samaysaa tijaabo wax whole wheat ah bakeeri ku shub ee biyo ku qas wax flour keligiis ahna ama bur keligiis ahna bakeeri ku shub biyo ku qas la dhig ee hadhow ka daadi kan burka keligiisa bakeeriga ma ka goyn kartid xataa sidaasoo calooshaada ugu dhegaa cajiinuu noqonaa shamiintuu ku noqonaa calooshaada nafaqo laga nuuga iska dhaafi calooshiiu kaa khariba midkan nakhaaladiisii leh ama leh qashinkiisii iyo xashirkiisii leh xashirkaasaa wuxuu keenaa inuu furfuro fiiri caro dhooba ah oo culus dhiru ma ka bixi kartaa maya waayo isa uga baxayn xididadii penetration ma ku samey ma geli karaan maxaa la sameeyaa bacaadaa lagu daraa dhoobadii lagama maarmo bacaad waxba kama baxaan sababtoo ah nafaqadii iyo biyihiiba ma ceshanayo bacaadki maxaa la sameeyaa labadooda la isku daraa maxay keenaysaa nafaqadii ku jirtay dhoobadana waa ku haynaysaa bacaadkiina wuxuu keenayaa in biyihii ay carada dhex galaan oo hawadii ay dhex gasho oo xididadii ay dhex galaan burkii ma ku dhihin aniga xashir keligiis cun xashir keligiis nafaqo ma laha calool waa kuu socodsiinaya laakiin wixii aad ka heli lahayd dhinacii burkay jiraan laakiin burka keligiis dhibaatadiis waxa weeye shamiintuu ku noqonaa caloosha wixii ku jira xitaa lagama faa'iidaysan karo oo caloosha kama faa'iidaysan karto that's why baastada marnaba baasta afkaaga ha gelin ama macaroni ama kalamudo
ama baasto kale ama whatever wax gacan lagu farsameeyey oo baasto waaye la yiri oo bur kaligiis laga sameeyey marnaba afkaaga ha gelin xataa buskut iyo doolsho afkaaga ha isku gelin iyo lasanya iyo kulli okay subaxii maxaa tiri 2 slice 4 slice intaa u baahan tahay adiga baahidaadii ku xiran tahay cuntada iska yaraa iyo hal saxabo bariis iyo kalaam faariq waay intaad adiga rabto ood ka dhargaysid maxaan ku samaynaa marka batarka maaragtay batarka subag buuraha loogu talagalay rootiga in la marsado marso malab kusii marso ama jam farmaajo ku marso farmaajada sokor miiran maaho waxba kaama gelin adiga sokor aniga dhib iskuma qabno cadow ma nihin jamka marso malabka marso farmaajadaas marso peanut butter ka fogow peanut butter ingiriisku peanut butter waxay yidhahdaan peanut butter ka fogow ama peanut butter sida maraykanku yidhahdaan ka fogow okay intaas ismarso afkaaga qabso haddaa rabto chips ka cun fiiri baradhada laga sameeyo frieska baradhada inta la jarjaro saliidda lagu shiilo ama mash potato laga dhigo ama la kariyo waa cuni kartaa waa khudaarta keliya oo liiskeena kaalinta koowaad ku jirto baradhada waxaa lagu yidhi iska jir maxay ahayto wax kasta oo jirkaaga u fiican waa lagaala dagaalamay wax kasta oo keeni kara inaad daawo qaadato oo jirato musiibo kugu dhacdana waxaa lagu yidhi cun okay subaxii marka 2daas slice ama 4taas slice iyo koobkaaga qaxwadaha cabtay muxuu ahaa okay duhurkiyaa la gaaray maxaa lagu qadaynaa bariis iyo gabal hilib ah iyo muxuu ahaa moos waa the best thing ever oo qada loo cuno hilibka weliba idaha iyo ariga hilibka idaha iyo ariga hilib jilacsan oo waxaa la rabaa calooshaadu ay shiidi karto borotiinka ku jirana kala bixi karto weliba maalin walba ma aha caafimaadka wuxuu ku jiraa hilib usbuuciiba mar ama 2 jeer inaa cuntid maalin kale malaay bariiska ku darso malaayga weliba hilibka ah ma aha argoosato iyo ma aha waa plastic wax ka jira male argoosato iska jira lulumayaasha badda iska jira wax ka jira male ma shiidi karto calooshaadu wax nafaqaana kalama bixi karto banaanka inta laboratory la geeyaa alla fiiriyaa lagu arkay protein iyo hebelow iyo macaadin iyo hebelow war caloosha adiga caloosh fiiri adiga calooshaada ilaaha shaqo ku leh adiga shaqo kuma lihid waxa aad ku ridaysaa shaqo ku leedahay shaqadeeda ilaaha u sameeyey mashiinada jirkaaga dhan ilaaha rakibay sidoo ku rakibay adigu ha ka khaldin dhibaataha gaarsiinin wuxuu sida ay laboratoryga ugu muuqdaan calooshaada dhexdooda ma ku noqonayaan okay gabal malaay ah bariis maxaa nidhi iyo gabal hiliba saa rabta hilibka u samayso waa inuu jilcan yahay waay iyo xabad moos ah waxaa ku cabi kartaa juice noocaa rabto furuto la shiiday laakiin qara iska jir iyo musk melon waxyaabahan warwareegsan oo beerta ka baxa qaraha iyo adeeradood faraha ka qaad orangida liinta iyo orangida iyo grape fruitka yaree intaa yareyn kartid ka fogow intaa ka fogaan kartid cambaha yaree cambaha ha badinin 2 jeer camal usbuucii juice ka dhigo weliba sidiisa maa loo cunaa mise juice ka fiican waxyaabahan fiberka dheerdheer oo borotiinka dheerdheer calooshu waa dhibay ku qabtaa inay shiido marka in juice laga dhigaa roon yaa juusaska ugu fiican juwaafa mirihii laga bixiyey oo la shiiday qoloftiina laga qaaday tufaax qoloftii laga qaaday oo la shiiday waxyaabahaas waa fiican yihiin aaday u fiican yihiin juuskaaga oo sokoraysan ku cab baakadaha ka soo gado muxuu ahaa supermarketyada cab preserveriska ku jira fiiri yaa fiican juuska baakada iyo juuska caadi loo shiiday yaa fiican waxaa lagu yidhi midka la shiidaa fiican ogow kan baakada waxaa ku jira
maadooyin xifdinaayo 2 saac ka badan juuska caadiga banaanka hadduu yaallo bacteria iyo bakti oo dhan ku dhalanayo kan baakada laakiin ma ku dhalanayaan waxa ku jira maadooyin lagu daray oo ka xifdinaayo inay ku dhasho cudurrada inay ku dhashaan ka xifdinayo frinjeerka intaad qayb ka shubataa frinjeerka gashanaysaa usbuucu kuu oolaa no problem kan laakiin muxuu ahaa freshka ah waa inaad markaas cabto sababtoo ah maadadii xifdin lahayd oo shirkadihii kuwan sameey ay kusoo dareen kuma jirto maadadaasna dhib ma laha caafimaad ahaan adiga kaadiday raacaysaa dhib ma laha okay cashadii maxaa cunaa cashada waxaa cunaysaa masago garow ah ama masago cambuulo ah oo qolofteeda qabto ama qamadi cambuulo ah oo qoloftiisa qabo ama galley cambuulo ah oo qoloftooda qabto ama sidaad doonto saddexdaas isugu darso digir abka ha u saarin ha u dhowaanin suuqa meesha digirtu marayso 10 kilomitirka xagga ka laabo saddexdan saa rabto isugu darso maxaan ku cunaa waay haddaad Soomaaliya joogto subag ama saliid macsaro iyo sokor ku darso sokorta haddaadan rabin iska dhaaf hawl ku taalo waay anaga ma kugu khasbayno sokor laakiin subag ama saliid macsaro reer galbeedka haddaad joogto macsara haddaad hesho waa kaas haddii kale olive oil saliidaha waxaa ugu fiican olive oil waa zayt zaytuun dadaa jira oosan dhadhankeedu la fiicnayn oo macsaradu la fiican tahay okay macsara ku darso wax weyn isma dhaamaan koobkaaga shaah rinjigaana ku cab haddaadan ka maarmayn haddaa ka maarantana waa fiican tahay intaas waa cuntada lagu ogol yahay fruit maxaa cunaa oo cuni karaa timir number 1 canab number 1 moos number 1 zaytuunkan fijiga la yiraahdo number 1 zaytuunka saliidda laga sameeyo oo mukhallal ahaanta loo isticmaalo waa fiican yahay asagana cuntada waa ku cuni kartaa maxaa nidhi timir canab moos fiji ama zaytuun suuqyada waa laga hela Soomaaliya ma yaalo dibadda in laga keeno Turkiga in laga keeno ma aqaan laakiin dhulka qaboobaha uu ka baxaa geed weyn waaye oo miro leh oo la beerto zaytuunka quraan ku jira waaye watiini wazaytuuni tiin waaye tiinka Soomaalida ma aha tiinka Soomaalida tiin shawkiya la yiraahdaa kaas ma aha waa tiinka quraanka ku jira watiini wazaytuuni fiji zaytuunan iri maaha zaytuun waa tiin taas waa mid waa fahamta wixii quraanka ku jiro cunto fiican waay cunto fiican waay maxaa kale oo maxay ahayd malab wax fiican waay wax fiicana laga wadaa malab allahumma salli calaa muxamed ma u baahnid waxyaabo fara badan oo cunto uma baahnid okay hilbaha borotiinka marka hilbaha waxaan nidhi hilib ido iyo hilib ariya brimo ah sekontayaa ah beer noociisa oo dhan subaxdii haddii lagu yidhaha irontaa kugu yar iyo kanaa kugu yar beer ku samayso rootigii slicekii aan kuu sheegay oo whole wheatka ahaa iyo beer isku cun toon iyo basal flavor basa uga baahan tahay flavor dhadhan basa uga baahan tahay wax kaloo faa'iidahay kuu tarayaan ma laha basal toontu maba shiidantaba caloosha shay uga baxda bal xabad toona maanta liq subaxii haarka ay raacaysaa iyadoo sideedii ah toon iyo basal waxaa uga baahan tahay bas waxa aa cunayso inay flavor u yeelaan matalan bariis aa karsanaysaa toon oo aad tuntay iyo basal matalan waa iyo liin iyo khal waa ku karin kartaa waa ku karsan kartaa muxuu ah hilbihii darajada koowaad waxaan nidhi hilib ido iyo hilib ari laba waxaan nidhi beer noocyadiisa kala duwan oo dhan marka laga reebo digaaga beerkiisa qashinka ku dar kaalinta saddexaad yaa ku jira
kaalinta saddexaad waxaa ku jira malaay iyo hilibgeel. malaay iyo hilibgeel. hilibgeel waa adag yahay, digestingkana hadhow dheefshiidka waa ku adag yahay, laakiin haddii aad loo kariyo ama neef dhayla uu yahay waa fiican yahay. neef dhaylaho geela hadduu dhayla yahay wuxuu gelaa kii idihii iyo weliba hal darajo kor u kacaa. laakiin sida caadiga aan ognahay geela waaweyn oo la qalo wuxuu u baahan yahay hilibkaas in aad loo kariyo, haddii kaleeto dheefshiidka hadhow dheefshiidka calooshiina waa dhibaa, nafaqadiina calooshii kalama bixi karto. marka kaalinta saddexaad waxaa ku jira malaayga, weliba kan hilibka ah malaayga hilibka ah iyo hilibgeela. kaalinta afaraad waxaa ku jira hilibka lo'-da. hilibka lo'-da wuxuu u baahan yahay in aad iyo aad markii laga maarmi waayo la cunaa, waana aad in loo kariyo, waana jirka meelo ka mid ah oo aad u karsamayo jilaac noqonayo, meelo jirka ka mid ah oo jilaac noqonayo oo dadka lo'-da qalaa yaqaana, meelahaasaa roon. hilib lo-aad in laga fogaadaa fiican. digaaga kuu soo haray. digaag horta ukunteeda banaanka ku tuur. ukunta digaaga waxaa u isticmaaltaa fertilizer, beeraha ku shubo, intaad tunto mooye ku tunto ama aad compost ka dhigto beeraha ku shubo, ama digaag kale ha kuu samayso. okay, digaaga marka breastigiisa lagu yiri asaga ugu protein badan oo ugu fiican oo ugu caafimaad badan, waa ka ugu liita qof bini aadan inuu cuno looguma talagelin. maxaa soo haray? thigh-ska iyo legs-ka marmar waa ku xadi kartaa, laakiin burka ka dhaaf. burkiyaad dhex gelinaysaa, aan iriyaan la cunin. ayaga laftoodana ma fiicna, ha ku degdegin. haddaad rabto cuduradaas aan soo sheegnay hadday ku hayaan ood rabto inaad ka caafimaaddo, digaag ka fogow, asaga dhanba isla tuur, kulligiis isla tuur, digaag oo dhan ka fogow. maxaa kuu soo haray? khudaar xoolaa loogu talagalay inuu cuno, bini aadan barsiim mataqaan barsiim iyo jirjiir waxay ku kala duwan yihiin lama arko. xoolaa loogu talagalay sideedaba khudaar, gaar ahaan midda cagaaran. yaanyo ka fogow. khudaaroo dhan waxaan ka soo reebnay baradhaan ka soo reebnay. fry ka dhigo, si kale u cun, si kale u samayso, baradhada okay waay. maxaa soo haray? biyo waa ka hadalnay. markaad cunto cab, cuntada kadib wax yar ka daba cab, isaga deji. biyaha ha iska badinin. maxaa la dhahaa, warkaadidii iyo wixii ka waran. jirkaagu geley daanga ah, wax ka adag maa jiro. haddaad cunto calooshaadu biyo kasoo, waxay u kalab saaraysaa energy iyo carbon dioxide iyo nafaqo iyo biyo. biyaha jirku asagaa samaynayo. dad waxaa jira weligood aan biyo cabin. xayawaan waxaa jira noloshiisa dhan aan biyo cabin. anigaan waxaan aqaanaa nin aan laga yaabin maanta dhala biya intoo furto inuu cabo. maraykan uu ku nool yahay. waa caato, wax ka caafimaad badanna ma leh, biyana ma cabaayo. waa la yaabi jira, waxaan dhihi jiray ninkaan mar dhow keliyaha waa beelaa. wuxuu beelay lama arko. aniga biyaha isku daldali jiraa keliyaha beelay. marka walaalayaalow, subaxii slice oo aad marsataan batar, iyo haddaa rabta batar ha marsana, waxaa marsataa zaytuun. fiiri, sliceska intaad saajka barta dabka saarto, zaytuun yar ku shubto, ku gedgedi, kadib jam ama marso malab yar, ama waxaa rabta marso, si aad ku cuni karta ka dhigo. midda kale, saliiduhu waa waxa keena cuntadu, subaga iyo saliidu waa waxa keena cuntadu inay jirkaaga ku shiidanto, calooshaadu inay shiido, jirkaagu inuu transport gareeyo oo meelihii looga baahnaayo oo dhan geeyo. waa saliida. saliid iska ilaaliya lagu yiri. horta bal in la rabo in lagu dilo adiga, in lagu dilo in la rabo, wixii jirkaaga u roonaayo dhana iska ilaali lagu yiri, wixii jirkaaga u xumaayo dhanna cunaa lagu yiri. daawaa lagaa dabageey,
kun isbitaalaa lagu furtay, kun dhakhaatiiraa lagu samaystay, kun farmashiyaa lagu samaystay. saliid jirkaaga u baahan. cuntadii nafaqadii fiiri, nafaqada jirkaaga laba noocay uga baxaysaa. qaar saliidaha ku milma iyo qaar biyaha ku milma. nafaqadii biyaha ku milmaysay sida borotiinkii iyo fiberskii iyo hebelkii iyo dhinacay marayaan. tii saliidda ku milmaysana dhinacay maraysaa. saliiddii haddaana oolin nafaqadii see marka tii saliidda ku milmi lahayd see uga soconaysaa jirkaaga, see maskaxdaada iyo beerkaaga iyo wadnahaaga iyo jirkaaga qaybihii kala duwan oo dhan see xididadaas ay dhex maraysaa. wixii waday waa saliidda. fiiri, maanta inaad kiilo bura cunto iyo inaad kiilo bari idaada cunto waxaa kuu caafimaad badan kiilo bari idaada inaad cunto. wax ay kaa dhibaysa lama arko. baridaas idaad beerkay dhibaatay, beerka iyo barida idaad shaqa maba isku lahaba. beerku maba shaqa iskuma lahaba. ma fahamte? kiilo bari idaadahan ku eri inaad cunto iyo kiilo bura inaad cunto waxa kuu caafimaad badan kiilo bari idaada inaad cunto. marka subaga iyo saliidda iska ilaali, iyo sokorta wax ka jiraa ma jiraan. sokor iyo subag iyo saliid iyo cusbo iska ilaali, wax ka jiraa ma jiraan. waxyaabaha dadka lagu lugooyey oo isbitaalada loogu samaystay ka mid tahay. marka subaxii olive oilkaas ama macsaladaadaas labadaadaas slice, afartaadaas slice ku cun, koobkaagaas qaxwada cab. haddaa rabtana koob shaaha rinjiga ka dhigo. rinji shaah damboo cadeesa ma maqli karo. shaah damboo cadeesa, caana booro, caana hebel, niidow. waxaan rabaa soomaaliya niidow dambe inaan la soo gelinba soomaaliya oo dhanba. sababtoo ah khasaaraha adduunka ugu weyn waa niidow. caano dhanba horta haddaadba 40 intaad gaartay aad ama ka baqayso cuduradaas inay kugu dhacaan amaba ay weli hadda ku haayaan, caanoo dhanba ka fogow. burcadoo dhan iyo wax laga sameeyana ka fogow. bebsi iyo coca cola iyo diintaasoo dhan, energy oo dhanna ka fogow. okay, digaag meel walba digaaga laga cunaa adduunka, sida doofaarka reer yurub iyo u cunaanoo meel walba sanka lagaa gelina, digaag sanka lagaa gelina adduunka. ka fogow iyo ukuntooda iyo waxooda dhan diintooda faraha ka qaad. digir, soomaalidu digiray cuntaa, ka fogow. digir ma aragtay qofkii digir cuna say dhuusadiis u urayso, calooshii khamiirtay waa, calooshii khamiirinaysaa. kansarka caloosha ku dhaca waxa ugu badan oo sameeya digirta iyo fuulka iyo waxa ay ka samaysan tahay waay. saxarada waxa ilmaha reer galbeedka jooga ku dhajiya beenad bararka waa subaxii rootiga loo marinayo. waxa allergida ku wada riday ukunta waay la siinayo subaxdii. ma fahanta? chicken iyo ukunteed iyo waxa khudaar wixii lagu yiri khudaar, saxan khudaarahan ka cunaa waa reer magaaleyn. aniga sideedaba saxan khudaara basaan cunaa. كلام فارغ واي، كلام فارغ واي. ما فهمت؟ شو بهالكاس فرايغا او برادada qudaar aan ahayn oo dhan qashinka ku shub. haddii aad flavor ka rabto basal iyo toon yar ku samayso bariiska markaa samaynaysid, flavor yar ka rabto. maraqii baastada iyo maraqii kale iyo maraqyadii fiiri baamiye iyo pepper iyo maxaa la yidhaha hebel kulli qashinka ku shub. You don't need them. You don't need them. maraqii laga kari jiray waxaasoo dhan oo khudaara suuqa yaal iska ilow, iska ilow. tufaaxa rabtaa inaa cunto qolofta ka fiiq. orange iyo ma kugula talinaya aniga orange inaa cunto. liin inaa cunto ma kugula talinaya. dadaa laleeyahay gaaska ay ridaahe ee liinta cun. war gaaska maxaa kugu abuuray marka hore? wax qashinka cunaysid waay. ma intaa sun cunto aa suntii daawo u raadinay? gaasay rida. gaaska maxaa kugu dhaliyay? sambuuska ha la iska daayo. sambuuska burka laga sameeyey iyo khudaarta ku jirta iyo waxa ku jira iyo hilibka biifka ku jira kulligiis faa'iido ma laha. caloosha uu sambuus galana kama baxo, waa aragtaan adinka laftiin. kulligiis faa'iido ma laha.
sambuuska iyo burka waa laba cudur dhaqanka aan u leenahayo ama lagu afuro habeenkii sambuuska iyo burka lagu afura ha la iska daayo faa'iido ma leh calooshii waa buuxinaa mana shiidi karto mana ka baxaayo waana musiibo qamadigaas ama galeydaas ama masagadaas qolofteeda qabta cun bal gaas ha kugu dhasho lafuhu hadday ku xanuunayeen waa kaa baxa haddaa socole eed waa socone sokor kaniiniga sokorta iyo kan dhiigkarka kulligood waxaa ku shubaysaa qashinka I'm telling you 3 bilood istijaabi bas dhibaato bil ma lagu dhihinoo soo uma soontid ilaahay dartiisa uma soontid caafimaadkaaga dartiisba 3 bilood ku tijaabi waxaan sheegaa 3 bilood tijaabi hebelaa yiri iska dhaaf tijaabi adigu isku tijaabi hana iskhiyaanin 3 bilood istijaabi waxaa kuu soo haray jiiskii waa 2 nooc fiiriya subaxii rootiga jiis aad dhex gashan kartaa jira batar keliya maaha jiiska la dubay oo chedarka iyo maaragta jiiska waxaa lagu kala gartaa jiis wuxuu yahay jiiska cadow carabta ay cunto sun jiiska ariishka ay yidhaahdaan carabtu ariish masaaridu oo cadcadoo burcadka oo waa uraa frinjeerka haddaa geliso xitaa waa uraa calooshaada saas ugu uraa mana shiidi karto calooshu absolutely ma shiidi karto jiiskee marka la cuni karaa waxaa la cuni karaa jiiska lasoo dubay ee markaa microwaveka gelisid dhalaalayo kaas bal ariishka laleeyahay microwaveka geli weligiis ma dhalaalayo jiiska dhalaalayo oo la dubay chedarka iyo oo kale sliceska ama oo jaalaha iyo waxaas jiiskaas waa cuni kartaa jiiskaas waa gashan kartaa sliceska subaxii cunaysa waa gashan kartaa jiisku marka 2 nooc waay iska jir nooc caanihiiyow raacay waa nooca cad ama burcadka ah ama biyaha ku dhex jiro ama lakabyadaha waaweyn oo carabta ay gadaan kaas ka fogow oo fuulka lagu cuno ka fogow aslanba ka fogow laakiin midka supermarketada lagu gado oo bacaysan oo chedarka iyo gruubyada isku cidda yihiin oo duban waxa ku tijaabin kartaa inuu kii saxda yahay microwaveka keli bal 1 minute hadduu dhalaalo jiis fiican waay saasoo calooshaadan ugu dhalaala hadduu dhalaali waayo lakab asagoo caloosha dhex fadhiisana caloosha khariba iska jir waxaan idin iri subaxdii waxa ku quraacataan slices oo whole wheat ah Soomaaliya tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo degmooyinka iyo baadiyaha whole wheat slices ma yaalo maxaa tala ah waxaa la samayn karaa masagadii ama qamadigii intii lagu shiido qoloftiisa iyo iniyihiisa ayaa mushaali laga dhigan karaa ama canjeelo laga dhigan karaa ogaada anigu canjeelo siday tahay ma mamnuucin waxaan mamnuucay canjeerada burka laga qaso laakiin qamadigiiyo isqaba ama hala kala shiido ama hala isku shiiday kulligiis aan waxba laga tuurin waxba laga shaqshaqin oo isqaba haddii canjeelo laga dhigto okay waay laakiin bur yaan lagu darin ama mushaaliha laga dhigto okay waay laakiin bur yaan lagu darin waxaa kaloo kuu wehlisa duhurkii bariis hala cunaan iri waxaa kalood cuni kartaa soor oo qamadigiiyo isqaba ama galeydiyo isqabta ama masagadiyo isqabta aad ka dhigatay laakiin su-aasha meesha imaanaysa waxay tahay soortii maxaa lagu cunaa soorta waxaad ku cuni kartaa haddaad ka maarmi weyso maraq baamiye waa marmar dhifa maraq baamiye ama subag caanaan kuu diidaa aniga soor hadda bariis uma baahnid inaad caano ku cunto mogta hilib haddaad ku cunto soorta haddaad doonto maraqa hilibka oo basal iyo toon lagu carfiyey maraqa hilibka haddaad ku cuni kartid waa khayr u baraka subag yar ku darsato haddii kale aad ka maarmi weyso marmar dhifa baamiyaa ku karsan kartaa
inkastoo baamiyuhu khudaarta cagaarka uu ka mid yahay waa dhib badan yahay weliba midka yaryarka ah baamiyaha midka yaryarka hadduu fiber yeesho oo afka ku shiidmi waayo caloolna ma ku shiidmaayo ogow hadduu keeno inuu mayiiq afka ku yiraahdo oo uu gowsuhu shiidi waayaan calooshuna ma shiidayso afkaagu wax uu shiidi waaye calooshaadu ma shiidi karto qaacido u qaado ruul u qaado afkaagu wuxuu shiidi waaye calooshaadu ma shiidi karto marka subaxdii mushaali waa cuni kartaa saliid macsaro ama saliid zaytuun ama subag iyo sokor ku darso mushaari cun mid suuq laga soo gaday maaha oo bur u badan maya mid aad adigu shiidatay oo xashirkeedii aad ku shiidatay oo iniinyaheedii aad ku shiidatay oon waxba laga miirin cun okayaa tahay walaalayaal waa idinku badiyey cilmigana cilmi aniga aan tijaabo ku sameeyey ma aha saan hore idinku sheegay waa ku qancay waa bilaabay hadda waxaan wadaa maalintii 5aad maalintii 6aad waxaan rabaa soomaali weyn waxa aan ka faa'iiday fudayd aan ka faa'iiday fudayd wallaahi fudayd aan ka faa'iiday iyo hurdadii oo ii toostay hurdadiina waa ii toostay waana fududaaday xanuunyo badan oo qabi jiray weli kaniinigii sokorta iyo waa wadaa laakiin waxaan rabaa baaritaanka bisha dhakhtarka inaan maaragtay inaan fiiriyo wuxuu yidhahdo 3 bilood wada arrintaas 3 bilood wada cudurrada qaar waxaa jira inta badan 80% 3daas bilood kaniiniga dhan waa daadinaysaa qaaraa jira wax yar kula sii soconayo oo yacni raba inaad joogtayso afkaaga ka adkaato cuntada waxaa la rabaa cuntada number 1ka annaga noo ah waa cunto marka aad 100 garaam cunto 80 garaam nafaqo noqonaysa 20 garaamna saxaro noqonaysa waxyaabaha kow aad arki doonto waxaa ka mid ah saxaradaadoo yaraanayso micnihii waxa waaye cunto nafaqo noqonaysaad cuntay cunto nafaqo u badan ayaad cuntay waay caloosha waa ku yaraanaysaa dibiradii waa kaa yaraanaysaa nashaadaad helaysaa jirkaaga waa firfircoonaana bil camal markaad joogtidna iscabar bal sokortaada iyo waxaa cabirtaa iyo dhiikarkaaga iyo waxaaga cabir adaa arki doona arrintaas dad badan oo mahadiyey ayaa maalin walba google garee facebook dr diyaa alcawadi diyaa waa DIA camal alcawadi ama carabi ku raadi soo ingiriisa waa kuu soo baxa dr diyaa alcawadi waraysiyada dadkiisa iyo dadkii intay qaateen prescriptionkiisa qaatay waxaas qaado masmuuxaad iyo mamnuucaada la yidhaha tayibaata la yidhaha tayibaat uu u bixiyey masmuuxaad waa wax la ogol yahay mamnuucaadna waa wax la iska mamnuucay cuntooyinkana darajooyin ay u kala leedahay qofkii carabi fahmaa dr diyaa alcawadi safxadiisa ha galo ama youtube ama facebook xataa whatsapp uu leeyahay marka khayr badanaa idin rajaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan rabaa 3 meelood inaan ka dabageeyo kilibkii aan duubay 3 arrimoodaan rabaa inaan tilmaamo arrin aan khalday magac aan khalday inaan saxaan rabaa waa meel zaytuun fiji zaytuun maaha waa tiin